ururka hablaha talamaal oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer ayaa soo bandhigay deeq raashin ah oo ay ka soo ururiyeen bulshada muxsiniinta ah si ay u gaarsiiyaan walaalahooda tabaalaysan ee aan awoodi karin waxay ku afuraan bishani barakaysan waxayna u mahad celiyeen dhammaan ciddii ka qayb qaadatay soona gaarsiisay ururka deeqdani raashinka ah iyaga oo sheegay inay hadda diyaar yihiin 30 qoys raashinkoodii oo ay u qaybin doonaan isla maanta gudoomiyaha ururka talamaal Xafsa Faarax Siciid oo ugu horeynba ka warbixisay qaabkay ku soo ururiyeen raashinkan ayaa sidoo kale fariin u dirtay bulshada muslimiinta ah ugu horeyn Ilaahay baa mahad leh maanta noo suura galiyay inaanu halkan isugu nimaadno iyo dadaalkii badnaa ayaan soo galay maanta inaanu ka rumayno annagoo ah golaha talamaal hablaha Togdheer kana kooban habla khaasa waxaanu maanta halkan oo ay bishu tahay 2 May 2020 waxaanu halkan maanta ku bixinaynaa raashinkii sadaqada ee Ramadaanta ee aanu sanad kasta bixin jirnay afurtaas oo isugu jirta laba qaybood qayb maalinley ah oo maalin kasta sameeyno oo 250 qof ah oo aanu sameeyno dadka ku jira isbitaalada dadka ku jira ee sheegay suuqyada dhakhtarka maandhaye dadka masaakiinta ah ee suuqyada fadhiya walwaalan iyo dad qoysas caadi oo afurta loo geeyo afur samaysan karaynin afurtaas iyo tan kale ah bishii hal mar aanu bixino taasoo aan ugu talagalnay 30 qoys ee walbaan gacanta ku haynay ee aan Ramadaan kasta wax siin jirnay aanu siino kaasoo iidana nagala qayb galo aanu iidana iidsiino 30 caruura maanta waxa noo suura galay dadaal badan oo in badan aan wadnay 30 qoys raashinkoodii ayaan maanta jecelnahay inaan bilowno qaybintiisii 30 qoys kasta waxaan ugu geynaynaa xaafadiisa ama gurigiisa aan ugu geynaynaa ugu horeyn iyo mar labaad waxaan hambalyo u diray hablahayga markasta ila shaqeynayay dadaalka maanta dheer iyo kartida quruxda badan ee maanta muujiyay waxaan kaloo iyagana u ducaynayaa dhammaan dadkii sadaqada nagala qayb qaatay kuwa dalka joogay kuwa aan jooginba markasta waxaan leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay idinka abaal mariyo sadaqada aad bixiseen anagu ma bixino waayo anagu waxaan bixinaa waqti iyo xoog baan bixinaa iyo maskax wixii kale karaankaygaan ku dari karnaa waan ku darnaa laakiin sadaqada mugeeda waxa bixiya bulshadeeda wax haysata ayuun laga soo ururiyaa oo suuqaas la galaa taas ayaan leeyahay dadkii sadaqada soo bixiyay aad baad u mahadsantihiin ilaahay idinka abaal mariyo fariinta labaad maanta halkaan ku diray waxa weeye dhalinyaro badan ayaa bulshada maalmihii ugu dambeeyay social media dadka dhalinyadan iskooda wax u qabsada u sameeysa ama volunteer ku shaqeeyay dacayadeynayay oo laha sadaqadan ay bixinayaan waa isku sawir amaba cashaacnimo ama caanimo ka raadinayaan waxaan leeyahay dadkani waa dad waqtigoodii huray saddex adduunka aan la helin bayagu huraan saddex adduunka aan ciyaar ku bixin bayagu huraan waqtigoodii bay huraan maskaxdoodii bay huraan cumrigeedina way huraan sidaas ilaajigeed waxaan leeyahay propaganda wax laga sii sameyn oo la oran waxay isku sawiriyo waxay wadaan waayo bulshadeena waxa noqotay badankeedii intuu soo itaabsi waxa sadaqa maanta aan wadno hadii aanan maanta ama video laga duubin ama aan sawir laga qaadin oo aan bulshadii dib loogu cilaan la aragin aan wax bixinay berito la ama Ramadaan tadaba lama ogolaanayn waxna la siiyo waxa la oranayaa tii hore way meel aad geysan idin kama hayne tan xageed geynaysan baa la oranayaa yaani qofku waxa loo qaaday isagu inuu qofku si gaar ah wax u qaadanayo ama dadka sida qarsoodida wax u gurtay inuu yahay sidaas ilaajigeed dhalinyaradu waxa igu sawir ma sameeyso fariintii ay ka soo qaadeen dadka ayuun bay bulshada intii kale gaarsiinayaan wixii loo soo riibay inay bixiyeen marka ayaan laga sameeyay bayc mushtariyan laga dhex sameeyno propaganda ayaan laga daba sameeyn baa leeyahay aadna wada salaamantihiin qof bulshadii nagala qayb qaadatay caawumadan meel kasta ay joogto wayagana wanu mahadnaqay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran markasta iyo mar labaad talamaal oo ah urur ay ku midaysan yihiin hablo iskood isku xilqaamay ayaa waxay aalaaba ka shaqeeyaan arrimaha bulshada iyo arrimaha khayriga Shaybe Umar Ismaan